just don't come overnight. Assalamu alaikum. Kolaba alif ba ta ABCD 1 2 3 waa anigi fartuun waa soo noqday maalin cusub aragti cusub kusoo dhawo channelkayga haddaad ka hesho videogan like ii taabo ra'yi haddaad rabtid inaad dhiibatid comment ku soo qor aragti saan camal haddaad rabtid inaad aragtid subscribe kili ku sii maanta videogu wuxuu ku saabsan yahay Marriage Chronicles waa qisooyin guur farxad leh dhibaato lahayn kalgacayl bis marka haddaad ka hesho like ii taabo okay qisadan guur waxay ku saabsan tahay wiil dhahay Maxamed actually magaciisa rasmiga waaye Marriage Chronicles magaca ma bedelo daada ma qariyo because waa wax farxad waa wax loo baahneen in la qariyo marka magaciisa rasmiga waa Maxamed mar hore ii soo dirsada bilo ka hor already dadka Snapchat-kayga ku jira way akhristeen laakiin waan ku soo celinaya because waan ka helay wuxuu yiri magacayga waa Maxamed 2015 waxaa lii celiyay Soomaaliya waxaa lii geeyay Soomaaliya dhaqan celis markaan Soomaaliya tagu yiri aabahay wuxuu yiri waxaa jirtaa da'dii kugu habooneed inaad guursatid aabahay waxaa ka dhaadhacsaneed uu yiri haddaan guursado in aan degi doono aniga intii Soomaaliya liigeenin ka hor uu yiri Mareykankan joogay wax kasto balwad waan soo isticmaalay naag intaan wadi karana waa soo waday marka wuxuu yiri cirkaan ku socday markii Soomaaliya keenu aabahayga ra'yigaas keenu yiri inaan guursado kama waalino waxaan ku eri anigu diyaar baan ahay maskaxin ahaan uu yiri anigu naag waxay ila tahay raaxo soo raaxo ma diideenin aab wuxuu yiri reer magaalo ahaamuun iga waalin wuxuu i baray gabar yaro qurxoon gabartaas wuxuu yiri 2 sano baan ka weynaa maalintii aan isbarano yiri aab wuxuu yiri waa kana gabarta la hadal aniguna gaariga anigu sugaaya marka sheekadiina dhamaysatiin ii soo baaq waan ku soo cili doonaa gabartii sheekadan la bilaabo yiri waan ka helay kadibna go'aan waxaan ku gaaray inaan numberkeeda weydiisto bilaan xiriir wadnu yiri oo telefoon iyo qoraal bil kadib uu yiri damac baa galay fartuun abay damacay intuu weynaadu yiri aan waxaan gaaray heer aan ku dhaho waan ku jeclahay bil gudaheeda markaan u sheegto yiri dareenkayga anigoo yaaban aabeyaan u tagay waxaan ku yiri aaba gabartii waan ka helay waan ku faraxsanahay guurkan marka wuxuu yiri waxa cajiibka waxa tuu yiri waan kala duwanahnay ayada waa gabar yar oo fiican uu yiri aniguna meesha waxa la ii keenay in la hagaajiyo ma fahanti 2 bilood kadib uu yiri guurkeeni baa dhacay guurkeenu wuxuu ahaa yiri arranged marriage at the same time laakiin wuxuu ahaa guur jecel ku dhisan maadaama gabarta la ii keenay aan jeclaaday 2 sano baan hadda isqabanaayo yiri fartuun hal marna qalbigayga kuma soo dhicin inaan wadanka ka soo tago markaan guursanayana maskixiyan ahaan ra'yiga markii la ii sheego yiri waxaan damacsanaa guurso raaxeyso dib u noqo oo meeshaada ka bilaaw waxaagi anigu dhan waa isbedelo yiri nin reer lahaan noqday gabartu waan jeclahay 2 sano farxadaan ku jiraayo yiri aniga xamar waxay ii noqotay gurigayga awalba gurigayga way ahayd laakiin maan aaminsaneen meeshaan meel igaga fiican ma leh waxaan ku jiraa my best life nolosheedii ugu fiicneed waan ku faraxsanahay waa naag hagaagsan waa naag qurxoon waa naag jecel ma fahantay marka wuxuu yiri anigu hadda waxaan ka shaqeystaa ayuu yiri Soomaaliya waxaan ahay turjumaan inta yaro isoo gashaan xaaskayga ku dhaqdaa meeshaan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo aabahayga wuxuu iga dhigay nin rag aabahaygu uu farx geliyay aabahayna wuxuu ogaa siduu igu hagaajin lahaa asoon i qasbin buu i hagaajiyay haddana farxad baan ku jiraa aaba macaan waad mahadsan tahay hadduu aabahayga maqlo magaciisa waa Shire aaba macaan waan ku jeclahay thank you very much haddana wuxuu yiri fartuun waxaan ku gudu jiraa in aan noqono family anigu waxaan aaminsanahay yiri markii awlaad la isku dhalo in family la noqonayo soo xaaskaygu yiri waxaan hadda ku gudu jirnaa inaan family noqono marka qisadeeda jecel waa taasa I love stuff like this anigu I love hadda تو المهم الوضع والله علي محمد شرع ما يصير ضم ما أنا لكن محمد شرع والله علي هدي أولاد ضغوط على بالنص شيء قوي عانى كبر عانو إلهي جور كجور خيرسن هكسي لو إلهي سنض بدن هنيوسي فرحد بش إبرواقة I love stories like this
waxaan camal waxay nagu dhiirigelinayaan in anaga dhan guursano guurku waa muhiim guurku wuu habboon yahay yaa laga wada baqin calafkiina wada raadsada yeah alright qaraabada lagu salaamo We not do it for the life.